Waa idin salaamayaa dhammaan meel kastoo joogtaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaali ku hadashaba. Waxaan doonayaa inaan la wadaago arrin ku saabsan dilka cayda iyo xumaanta lagu haayo masiixiinta. Iyo masiixiinta sidee u arkaan iyo sida ummadda kale ay u arkaan. Muddo 40 sano ka hor 40 sano oo lasoo dhaafay waxaa socotay ummad la laynayo, la caynayo, la dhibayo ilaa hadda. Dadkaasna waa muuminiin, waa dad aan weligood waxba dhibin, waxba caynin, waxba waxaynin, ilaahooda kaliya ayay aaminsan yihiin. waxaan lagu dilayaa, lagu waxaynayaa waa ilaahaygiina seed u caabudeen. ta koowaad qofka xor buu u yahay waxa uu aaminayo isaga iyo ilaahiisa ayaa anigu waxaan aaminsanahay inay ka dhaxayso. ilaahay baana ummadiisa la xisaabtama. marka qofka bini'aadanka ah cadaab iyo janno iyo dembigiisa kan xisaabiyo waa ilaahay, anigu saas aaminsanahay. laakiin dunida baaba dadku ku xisaabiyaan oo maxaad uga baxday diinta, maxaad uga soohaysay, maxaad sababtana waxa weeye dadka masiixiinta ah luqad aynan aqoonin Soomaalida ku hadlayaan oo alis cafiyo, ilaahay waa jacayl, ilaahay baa noo dhintay, wiilkii ilaahay weeye. luqadda ma fahmayaan dadkan. waxay u malaynayaan sidee waayo ilaahay see u yahay. ilaahay awoodiisa wax walba ayuu ku samayn karaa. qofkii markuu ku nacayaa marka qaarkood dadkoo dhan ummadda isku wada mid maaha. qaar waxay sameeyeen inay dilaan, qaar waxay sameeyaan inay caayaan, qaar waxay sameeyaan inay nacaan, qaar waxay sameeyaan inay ka tagaan, qaar waxay ka sameeyaan inay silciyaan, qaarba waxbay go'aansadaan. kulligoodna waa isku wada dembi. dembiyadana dembi midna kama fiicna. marka bal qof yahow Soomaaliga ah ama qof yahow oo bini'aadanka ah, qofkan ma adaa ilaah u ah? adigu waxaad u tahay ama friend ama family ama qof yaqaano, laakiin ma waxaad u tahay qof maqlayno qofka masiixi yahay. adigu ma waxaad u tahay ilaah? adigu ma ku caabudayaa sida adiga rabtid miyuu ilaahay u caabudayaa? maya, qofka ilaahay siduu isaga u rabo ayuu u caabudayaa. sida annagana aaminsannahay masiixiintu waxay tahay ilaahay baa noo yeeray, waan raacnay. ilaahay wuxuu ku leeyahay isoo raac, waan raacnaa. maahan inaad jeejeesanaysid iyo inaad waqti ku dhiminaysid. iyo qofkii la taabto horu ka raacayaa. marka macnaha dembiga iskale orda ilaahay u tago, ilaahay caaya oo dila. ilaahay baa dadka masiixiinta u yeerta, iyagaa asagaa keenay. marka walaalayaalo waa la isku wareersan yahay arrintaas. marka dadkaas waxa dhaca iyo dhibaatada sameeyay ilaahay ka saamaxee. waxa weeye waxaan kula talin lahaa dadka ilaahooda yaan loo kala dhaxayn. hawsha ilaahay iyo adigana ani marka waan yaabay. hawsha ilaahay adigu ha gelin. ani waan yaabay waxaan maxaa kalifay. marka kitaabkeena Bible-ka wuxuu ka oranayaa, wuxuu ka leeyahay John 16:2 waxay idin saari doonaan sunagyada weliba saacadu imanaya in aad weliba aad soo xasuusataan oo weliba idin dila oo u malaynayo inuu ilaahay u adeegayo. marka saana lagu sameynaya horta hore waxaana lagu sameynaya qofku kugu sameynayo masiixiga. qofka masiixiga ku sameynayo wuxuu u malaynaya inuu ilaahay u adeegayo. waan aragnay ilaahay baad ka furatay, ilaahay baa yiri qofkii diinta ka baxa dila, qofkii ma aragtay waxa sameeyo wax ma ahan qof fiican.
sababtoo ah baan u dilayaa qof ilaahay ka furtay way marka waan dilayaa marka ilaahay adiga miyuu kaaga baahan yahay inaad u shaqaysid asaga mana dili karo qof kastoo diinta ka baxa ilaahay ka siin karaa soo ma sama adigu kuu baahan yahay inaad u adeegtid ilaahay xaasida ma ahan ilaahay dad laaya ma ahan ilaahay aaminsanna annaga saasaan ku garanayaa inay waxaas inay ilaahay ka imaan sababtoo ilaahay qof inuu ku shaqaysto qof dil dhaho aad buu asaaba qofkan abuuray isagaa qofkan create gareeyay inuu la dilo maba ogolaba in laga taabtana ma ogola marka ilaahay haddaan aniga u shaqaynayo ilaahay wax wanaagsan u samaynayaa laakiin ilaahay dil iyo dhac iyo ma soo dirsan marka qofka ayaa muhiim ah ilaahay inaan fahno meeshu ka imaanaya dadka walaalaha masiixiintan inay fahmaan qofkan wuxuu isleeyahay ilaahay baan u shaqaynayaa marka aayadda kale oo ku xigto waxaa waa John 6:3 oo waxay waxyaalahaas u samaynan doonaan waayo waxayna garanayn aabbaha iyo aniga toona qofka hadduu ilaahay garanayo oo ciise masiix garanayo oo maxaa la yidhahdaa ilaahay weeye ciise masiix oo ciise masiix garanayo ma uu samaynayo waxaas qofku waxaa sameeyo waa qofaan ciise masiix iyo ilaahay aqoon sababtoo ilaahay hawshiisa asaa qabsada ilaahay dad ma dilo wuu sameeyaa dhibaato ma sameeyo ilaahay aniga taqaanid iyo aniga ilaahay aan aqaano waa kala labo ilaahay wax dhisa oo hagaajiya aniga aqaana ilaahay wax baabiyo ma aqaano xataa xumaanta iyo jirrada iyo dhibaatooyinka iyo gaajada iyo waxay ka timaadaa dunida iyo ma aragtay shartay ka timaadaa ilaahay wax ka yimaado waa wax wanaagsan dagaal iyo baaba iyo cay iyo waxaas ilaahay kama yimaadaan waa in la kala bartaa horta ilaahay muxuu yahay ilaahay ma aha saas ilaahay ma jeclo ilmo uu abuurtay qof uu leeyahay qof uu asaga samaystay oo neef geliyay in qof dilo ma jeclo runtaa idin sheegayahay qalad weeye arrintaas marka maadaama waxyaalahaas ay dhaceen maxay kaniisadda masiixiinta ku samayn kartaa arrintaas maxay macnaha saameyn maxay ku noqon kartaa xumaanta iyo samaanta iyo xumaanta iyo sharta iyo dhibaatada masiixiyadda kuma gaabanayso way ku koraysaa because markastoo nala dhibo ilaahaygeena ayaa wuxuuna siinayaa howl wanaagsan qof kasta oo wax wanaagsan rabbiga dartiis loogu dilo ilaahay baa noo abaalmarinaya sababtoo ah kuwa dunida way nacam wey ilaahay markaa muxuu kitaabka ka leeyahay marka annaga nala silciyo oo nala caayo oo nala dhibo oo nala waxeeyo wuxuu noo ku sameey ilaahay muxuu annaga noo ballan qaaday muhiimadeeda aayadda kitaabka waxay oranaysaa Sheeya 41:10 ha cabsanin waayo waan idinla jiraa ha nixinina maxaa yeelay ilaahiina baan ahay waan idin xoogeyn doonaa waan idin caawin doonaa waan idin tiirin doonaa midigteyda xaqa ah marka rabbiga markii nala caayo markii nala xumeeyo asaga wuuna xoogeynayaa wuuna caawinayaa wuxuu nagu tiirin doonaa gacantiisa midigta marka dadka ma u malaynayaan inay faa'iido noo sameynayaan laakiin dadka markay nacayaanna waxeeyaan runtii faa'iiday noo sameeyaan rabbigeena aad noogu sii dhaweynayaan rabbigeena ma aragtay moor nagu sii uuna sii jeclaanaya ilaahayna wax badan marka qof oo ma aragtay ilaahay dartiis loo xumeeyo loo waxeeyo qofkaasaa aad nasiib badan runtii kaniisaddan waxay u baahan tahay dadku inay taa ogaadaan oo kusii dhiiranaadaan oo istaagaan inay waa la caynayaa oo cabsadaan ma aha waa la waxaynayaa ma ahan sababta ilaahayna ayaa ballanqaad inoo sameeyey
wuuna caawinayaa wax kasta oo dhibaato isagaa naga maaragtay isagaa naga badbaadinaya haddaan aaminsanahay ilaaha nool oo awoodda leh oo annagana waxay haddaan aaminsanahay waxaa weeye waxba kama cabsanayno. adigu waa inaad ogaataa inaad wax xun samaynin laakiin masiixiinta way nimcoobayaan, wayna sii koraysaa, kaniisadana way sii weynaanaysaa. taas baa qofka marka wax caynaya ogow inaa qofkan asxaan u samaynaysa, qofka wax dhibaateynaya qofkan asxaan baa u samaynaysaa. sababtoo ah qofku wuxuu dareemayaa inuu ilaahay u adeegayo, sababtoo qofkan kale oo dhibaayo ka dhex dareemaya, uu ka arkaya. qof kasta oo la dhibo waa qof kasta oo ilaahay uga dhow. ilaahay buu nooga sii dhow yahay, xataa masiixiin markaana anaga gudaheen. qofka aad loo sii dhibo waa qofka aad rabbiga maaragta usii jecel yahay. marka masiixiyadda dadka masiixiinta maxaa looga baahan yahay markay arrimahaas dhacaan? saas dhacdo maxaana anaga ahaan nalo ka baahan yahay? waxaa nalo ka baahan yahay si aan ilaahay ugu xirnaano, inaan dadka u duceyno, dadka maaragtay inaan u dulqaadano, dadka inaanan dhibaateynin. laakiin waxaa nalo ka baahan yahay inaan maaragtay waa meel dadka inta badan ku wareeraan. sababtoo ah qof ku dhibaayo ku caynaya ma yeelaysid. qof bini aadan baa tahay, jir baad ku dhex jirtaa. waxaad leedahay war waxaanaytiyaa kaa ceshta, war qofkan raadso maaragtay inta kugu sameeyey ka badan ku samee, muhiim waaye. laakiin wuxuu rabbiga ka oranayaa muhiim ah inaa ogaan. kitaabka Matthews 5:44. laakiin waxaan idin leeyahay cadowyadiina jeclaada, u duceeya kuwa idin habaara, wax wanaagsan u sameeya kuwa idin necab, ilaah u barya kuwa idin caaya oo idin silciya. bal ka waran ilaahaneetina wuxuu ku leeyahay adiga wax u duceeya, adiga waxbaha ku waxayna masiixiinta ilaaha walaalaheena aaminsan yihiin wuxuu leeyahay silci dil oo marka aniga kale ilaah baaba nahayo. ilaaheenana wuxuu leeyahay dadka ha silcinina, ha dhibinina, ha waxaynina. anaa idin marka idin caaya anaa idin caawin doona, anaa idin jiri doona. dad badan waxaan arkay muddoodan dambe oo dhan oo maxaa la yiraahdaa dadka masiixiinta mashquul ku noqda, oo 40 sano lasoo dhaafay oo dhan way socotay. laakiin hadda ayaamahan waxaan arkaa cay iyo aflagaado iyo wax. marka only qiimahaagii unbaa hoos u dhigtay. qofkan bini aadanka awood buu helayaa oo ilaahay xaggiisa buu usii dhawaanayaa. adiga unbaa dhibaato qofka waxaynayaa dhibaato qabo. marka masiixiyadda saasay ka qabtaa. walaalaheen baad tihiin, waan idin jecelnahay meel kastoo joogtaanba. haka ogaada caqiidadeena naga celinaysa. rabbigeenana wuxuu jecel yahay inuu aan anaga shar ku celinin oo dhibaato ku celinin. marka waxaan idin dhihi lahaa iska tijaabiya ilaaha aa u shaqaynaysaan ilaaha u yahay. ilaah dadka caynaya, dadka dil ku yiri hadduu yahay, ilaahaas ilaahay ma ahan, waa shaydaan. laakiin ilaaha runta ah, xaqa ah, dadka ku xadgudub kuma dhahaya. dadka kumana baahnaada inaad wax u samaysid oo adiga aad wax u soo laysid. ciidan ilaahay uma baahna. ilaahay magaalada dhan hal mar buu saas u jabin karaa, u dhigi karaa magaalay rugmo, dadkana ceebu ku dhegi karaa. ilaahay awood buu leeyahay, qof uma baahna. marka iska tijaabiya, weydiiya, maaragta wuu idin jawaabayaa. waxaad tirahdaan ilaahaygeena
ibraahim isxaaq yacquubo kee tahay aniga ilaahaygiga maa tahay mise ilaah kale aaminsanaa iska tijaabiya waa arrin aniga isoo martay oo aan arkay oon aaminsanaa inaan ilaahay aaminsanaa muddo badan markii dambena aan ogaaday inaan ilaahay aaminsanayn ilaahay iska tijaabiya ilaah inuu ilaahay ilaah runa yahay ilaah xaqa yahay ilaah maaragtay u baahan in loo adeego oo adiga ku darsanayo yahay ilaah maaragtay adiga shar ah oo meel xun kugu ridaa inuu yahay iska tijaabi midku yahay yaa markaas kadib bal adeegga xataa adeeggu kee waaye adeeg xumaan ku waxeynaya ma aha xumaan ku celiya ma aha adeegdu inaad qof bini'aadan ku mashquushid maaha laakiin waxa aad aaminsan tahay hadday wax wanaagsan tahay oo qofka walaalka inta badan aan arkay waan kuu nasteexeynayaa ii nasteexeynaysid wax xaga soo duub ii soo sheeg ii sheeg waan kaa dhagaysanayaa laakiin adoo ixtiraamaysa laakiin haddaad ixtiraamin aan wax kastoo wadid markaa dhagaysanaya walaalaha muslimiinta iyo walaalaha aan waxba aan aaminsanayn iyo waxaan kula talin lahaa qofka adiga waxa aad u sheegaysid ixtiraam iyo akhlaaq ku dhowrsanaata laakiin cida masiixiyiina maanta dhan daba soconaya mashquul ku noqonaya waxaas waxa ma tarayso waxaas waa adeeg iyo waxaan kasii qaadaynaa maaragtay inay wax xun tihiin waxaad aaminsantihiin baaban sii aaminayna haddaa waxa wanaagsan aad sheegaysid oo ay inkastuu rabbiga uu yiri geed kasta mirihiisa lagu gartaa maaragtay geedka canab buu dhalaa geedka cambaha cambuu dhalaa geedka aanan waxba dhalayn oo waxaynayn oo dhibaataysan waxba ma dhalo marka geed kasta mirihiisa lagu gartaa marka waxa adiga aad tahay noo sheego si ixtiraam leh noogu sheega laakiin cay iyo xumaan wax ma tarayso aniga nasteexa adinkaan idinku sheegayo waa xataa walaalahay aan kula talinayo waxa aad sheegaysid oo adiga taada ah noo sheeg waan kaa qaadanaynaa kaa dhageysanaynaa weli waa ku ixtiraameynaa waan kugu ixtiraameynaa inaad qof fiican tahay oo waxaad aaminsan tahay noo sheegi karti waan kugu ixtiraameynaa annaga laakiin waan badbaadnay nuurkiina dunidaan nahay waana ku faraxsannahay waxaa haysana sababtaasaan wax walba banaanka u dhignaa wax walba aan inla qaybsan karnaa sababtoo waan iska dhedheminay waan aragnay waan nala tusiyey waan maqalnay waana qiraynaa ilaa maalintaa dhimanayna in rabbigeena ciise masiix uu yahay marka walaalayaal waxaan kusoo gabagabeynayaa waxaan kusoo gabagabeynayaa duca rabbiyo ilaahayo walaalahayga Soomaaliyeed meel kastoo joogaan oo doonaya inay xaq helaan rabbiyo xaq helaan kuwa ku raadinaya rabbiyo ha ku helaan kuwa raba inay ku weydiistaan rabbiyo ha ku weydiistaan sababtoo waxaa tiri ku kastoo aniga ay weydiisto waan siinayaa ku kastoo garaacana waan ka furayaa rabbiyo aab oo macaano ummadeena Soomaaliyeed oo dhan meel kastoo joogto rabbiyo booqo wadankeena nabad ka dhig dalkeena nabad ka dhig dhaqankeena nabad ka dhig dabeecadeena nabad ka dhig rabbiyo si aan iskula joogno oo isku ixtiraamno rabbiyo badbaadada kaliya jidka kaliya waa adiga jid kale ma jiro aan ciise masiix ahayn oo loogu tagi karo rabbigeena rabbiyo tusi jidkaaga dadkeena oo dhan intaasoo dhan waxaan kugu weydiisanayaa magaca wiilkaaga kaliya hooliga ah ciise masiix amiin thank you walaalayaal mahadsantiin inta ay dhageysateen rabbiga ha idin barakeeyo meel kastoo joogtaan mahadsanidin nabadee